kumanaan dad oo ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee Berbera ayaa saaka u dareeray tukashada salaada Ciidul Fidri taasoo ay dadka ugu badan ay ku tukanayeen garoon loo qoondeeyay in salaada lagu tukado oo ku yaala bartamaha magaalada Berbera mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo culimo kala duwan iyo waliba mas'uuliyiin ka kala socotay hay'adaha laamaha dawladda ayaa kala qayb galay tukashada salaada Ciida shacabka ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee Berbera saraakiisha ciidamada kala duwan ee amniga ayaa iyaguna qayb ka ahaa mas'uuliyiinta gobolka ee degmada Berbera ayaa halkaasi khudbado uga soo jeediyay dadka shacabka ah ee ku tukanayay garoonka dhexe ee magaalada Berbera waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta oo ka sheekeeyay ahmiyadda ay dunida islaamka u lahayd bishii barakaysneed ee Ramadaan bishii Ramadaan waa inuu maanta ciidii ku jiro marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeynaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan marlabaadka si gaar ah ugu hambalyeeynaa reer Saaxil marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan bahda saxaafadda oo run ahaantii da'yar u taagan inay arrin kasta oo bulshada qaar ka mid ah culimada kala duwan ee magaalada Berbera iyo sidoo kale xukuumadda fulinta dawladda hoose oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dadka imanaya magaalada Berbera uga digay halista badda dadweynaha reer Berbera ee halkan isugu yimi ciidka barakaysan ee Ciidul Fidriga ilaahay acmaashi wanaagsan aynu soo qabanay inaga aqbalo ilaahay nabadda haynoo adkeeyo ilaahay horumarka magaaladeena ka socda ee ay hooyada u tahay Soomaaliland oo dhan iyo geeska Afrika ilaahay inoo hagaajiyo waqti doorasho kala guura baa lagu jiraa mashaariic horumarineed iyo kuwa ganacsi oo waaweyn oo adduunyada kula jirno ayaa ka socda gobolka iyo degmadeena doorasho foodayna ku soo haysta waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo macaasi inay doorashada ka dhacdo hal la yareeyo hal la istilaaliyo oo ilaahay laga boqo waxaan doonayay ducada Allah inoo duceeyo Allah inoo lingaxo magaaladii way balaaratay sidii hore ma aha dadkeeduna way bateen in ku hareeraha kaga maqan ama dawladaha ku maqani Berbera magaalada la yimaado laga baxaba loo yaqaanay anna waxaan u baaqaynaa magaaladii waxaan ka baqayaa meelaha ka degtaa inay way doontaan waqti dhow taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka saaxil Haaruun Siciid Cali oo isaguna halkaasi bulshada kala hadlay ayaa hambalyo u diray ciidamada amniga ee kala duwan gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha isagoo digniina u soo jeediyay dadka dalxiisayaasha ah ee Berbera imanaya munaasabada Ciidul Fidri kasto dhawaqayga maqasha oran lahaa caruurtan waalidkoodu la socon mashaakil badan bay leedahay ee waalidkoodu caruurta soo raaco sidoo uu ilaaliyo xaaladooda kasta ay ku jiraan midda kale waxaan oran lahaa dhammaan ciidamada qaranka meel kasta ay joogaan ciid mubaarak xaasaskooda caruurtooda khaasatan ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan saldhigga Berbera waxaan leeyahay ciid mubaarak duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ku hambaliyay salaada Ciidul Fidri waxay dadka ay uga digeen halista ay badu leedahay maalmaha farxadda ciida ee ay dad aad u tiro badan imanayaan xeebta Batalaale qodobka koowaad ee isku celcelinayna dhamaanteen isu sheegayna waxa weeye waa nabadgelyada nabadgelya ayaa naas nuuga leh rag iyo haween dhammaan dhalinyaro iyo waayeelba wayna ilaashanaa nabadgelyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo celiyey soona celin doonaa sare sii kici doontaa dadka reer Berbera Berberaawiinta la yiraahdo inay yihiin dad isku hayb isku qoys isku qabiil ah waxa midayaan ay tahay deegaanka reer Berbera la yiraahdo aad iyo aad baan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa dhalinyarada imika baraaruga ah ee ku baraarugtay adeegyada asaasiga ah ee iyagu isxilqaamay hadday yihiin dhinac kasta waxaan inta raacinayaa laba qodob oo aan doonayo inaan uga faa'iideysto dadweynaha maanta halkan isugu yimid runtii waxa weeyaan maalinta ciidda ah ama khamiisahaba waxa inagu culus oo ina dhiba caruurta yaryar ee aan waalidkood la socon ee gobolada kale ka imanaya runtii waxa weeyaan caruurtaasi baday ku dhacaan anagu xukuumad ahaan waxaanu gelinay heegan ciidankii kii badu ku jiraayo iyagoo doonyahoodii haysta kuwii kalena bariga ayay ciidankii bilayskuna heegan kaga jiraan waxa la doonayaa in
aynu carruurtaa yaryar ee inoo imanaysa aynu ilaalino oynu heegan u ahaano culimmada munaasabadaha noocan oo kale ah ayay dad aad u tiro badan ciid kasta isugu yimaadaan garoonkan oo ah garoonka weyn ee magaalada Berbera sidoo kale waxa lagu tukanaya goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera